سيرة الصدعانك أيامها سلسلة اللي يلبسوه صوت شريعة دعتهاي سنردا dowlad goboleedka bartamaha Soomaaliya waxa uu ka mid yahay dowlad goboleedyada sanadadii ugu dambeeyay ka hana qaaday geeyiga Soomaaliya taariikhda dhismaha maamul goboleedkan loogu magac daray bartamaha Soomaaliya ama Somali Central State waxa uu soo maray taariikho kala duwan taasi oo ay ku bixiyeen juhdi adag siyaasiyiin aqoon-yahano iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanada ku abtirsada bartamaha Soomaaliya haddaba intii aan lagu dhawaaqin maamulka bartamaha Soomaaliya waxa ay isku yimaadeen shirar badan oo ka dhacay dalka dibadiisa qaybo kamid ah aqoon-yahanada ka soo jeeda deegaanadaasi iyo qurba joogta u dhalatay deegaanada bartamaha Soomaaliya waxaana kulamo ku yeesheen taariikhiya dalka dibadiisa kulankii ugu weynaa waxa uu ka dhacay magaalada Leicester ee dalka UK halkaasi oo ay ka soo qayb galeen dad aad u fara badan oo ka soo jeeda deegaanada maamulka bartamaha Soomaaliya ku abtirsada kulankaasi oo ay ka horeeyeen kulamo dhowr oo isla markaasina ay ka soo qayb galeen bulshooyin fara badan taasi oo lagu qancinayay dadka ku abtirsada deegaanadaasi in ay sameystaan maamul ay u dhameystiran yihiin ayaa waxa uu ahaa kulan taariikhda baalweyn ka galay maadaama la isla gartay in la sameeyo maamul ay ku midaysan yihiin dadka ku abtirsada bartamaha Soomaaliya waxaana halkaas hadal ka soo jeediyay qaar kamid ah waxgaradkii ka soo qayb galay waxa shirweynuhu go'aansaday qodobadan hoos ku qoran koow in la dhiso maamul goboleed lagana dhiso gobolada dhexe ee Soomaaliya in shirweyne guud ee ku saabsan dhismaha dowlad goboleedkaas lagu qabto gudaha dalka qodobka saddexaad waxa shirweynuhu si dhameystiran u doortay magaca maamulkaasi inuu noqdo dowlad goboleedka bartamaha Soomaaliya dadka kama aanan liidanin kama aanan karti iyo dadnimo xumeyn laakiin waxaan ka dhur sugaynay Soomaali weyn oo isku soo noqota sidaa daraadeed arintani waa arin maaha arin ku timid fudayd iyo laablakac waa arin ku timid bisayl iyo baahi loo qabo waxaan u mahad celinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo shirkan fadhida waxaan u ballan qaadayaa hortooda in aan ka dhabayn doono shaqada naloo diray aan sameyn doono muddo yar oo kooban gudahood maamulkaas aan ku geyn doono shirweynena ku qaban doono gudaha dalka Soomaaliya haddii Allah Casa wa Jalla ogolaado shirweynahaasi ka dhacay magaalada Leicester ee dalka Ingiriiska ayaa waxaa la isla gartay in magac ahaan la isla qaato maamulka bartamaha Soomaaliya ama Somali Central State isla markaasina uu magacaasi noqon karo mid dhaxalgala oo iska dhaxlaan bulshooyinka Soomaaliyeed waxaana qalinka lagu duugay in magacaasi la meel mariyo Somali Central State ummadda Soomaaliyeed hamidowdo qarannimadii ha soo noqoto dawlad jirta aan noqono dawlad goboleedyada ha taageero haddaba markii uu soo dhamaaday shirweynihii ka dhacay magaalada Leicester ee lagu soo yagleelay maamulka bartamaha Soomaaliya waxaa 28 bishii May ee sanadii 2010 ilaa 30 bishii May ee 2010 waxa ay u soo kicitimeen qaybo kamid ah qaaradda Afrika si maamulka loogu sii galbiyo dalka Soomaaliya halkaasi oo uu kaga hana qaado si toos ah deegaanada uu quseeyo shaqada maamulka waxaana ay taasi dhashay in horjoogayaashii howlwadeenada ka ahaa aas-aaska maamulkani lagu soo dhaweeyay si diiran magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya halkaasi oo ay ku soo dhaweeyeen qaar badan oo kamid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku abtirsata deegaanada bartamaha Soomaaliya kuwaasi oo u xiisa qabay in ay mar uun arkaan maamul ka hana qaada deegaanada bartamaha Soomaaliya
waxaana halkaasi lagu soo dhaweeyey 7 bisha Oktoobar iyadoo ilaa iyo 16 Oktoobar ee isla sanada 2010 oo halkaasi ay ku lahaayeen kulamo isla markaasina halkaasi lagu soo caleema saaray mas'uuliyiinta ugu sarsareysa maamulka bartamaha Soomaaliya sida madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. horta raggii noo keenay markay muddo hal sano ka soo shaqeynayeen aqoontooda iyo gabdhihiiba maskaxdooda hantidooda iskama naanaadan haddaan nahay golaha guurtiga anigoo ku hadlaaya afka golaha guurtiga waxaan isu suuraynay in ay u qalmi karto waa sharcigaan ay wadeen ee keeneen iyo inaysan u qalmi karin muddo fara badan waa isu suuraynay waa naalasgaraynay wuxuu noqday mid u qalmi kara Soomaaliya Central Government iyo Soomaaliya oo dhan waxaan meeshaan u soo istaagay anigoo wakiilka ah saraakiisha Soomaaliyeed iyo saraakiisha beesha side waxaanu leenahay dawladda cusub ee maamul goboleedka bartamaha Soomaaliya ilaahay ha ka dhigo midii guuleysata wax qabata waxaanu leenahay midii gacan ka hesha caalamka dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya dawlad goboleedyada kala dirshada la iyo kuwa laahaynba midii gacan ka hesha hawsheeda ilaahay u fudeeyo in ilaahay ka dhigaano rajayno waxaan u ballan qaadaynaa oo ku hadlaya intaan wakiilka ka ahay hadday mid Soomaali tahay iyo hadday mid beeleed tahayba inaanu gacan ku siino inaanu taageerno inaanu garab istaagno intaanu magacaabana shaqada uga harin baan u ballan qaadayna shirkan waxa weeye magacaabidda madaxweynaha dowlad goboleedka bartamaha Soomaaliya Dr. Cali Xaashi Cabdi iyo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka Maxamed Xayiir Nuur magaca golaha guurtada dowlad goboleedka bartamaha Soomaaliya kadib markaan aragnay sharciga looga dejiyey dowlad goboleedka bartamaha Soomaaliya kadib markii aan fiirinay dastuur iyo sharciga dowlad goboleedka bartamaha Soomaaliya ayaa waxa ay noqotay laga maarmaan inaan magacowno madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen muddo 3 sano oo ku meel gaar kadib markaan dhageysanay codadka shacabka bartamaha Soomaaliya iyo baahida loo qabo in maamul degdeg loo sameeyo deegaanada ayaan golaha guurtada iyo guddiga qabanqaabada waxay isla garteen in la hirgeliyo magacaabidda madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaana gacanta saartay jaamaca gobolka inaad gacan u tahay inta iyo dadkaaga iyo guud ee dalkaaga inshallah waxaan ballan qaadaynaa haddii la yidhaahdo in dacdo ahaado diintayda dalkayga iyo dadkaygaba قابلنا إلى عمل زاكين إلى مدة يقصر يدك أداء من الجامعة فرنسا. إن شاء الله بدون وحياة من وصلنا إلى سورة مسترد دوما أنا يبغى نقال دوما أنا مركز يبغى نقال دوما إن شاء الله بدون برنامج كان ماشي لو بكرة يروح كذا نجيب دوما أنا جين دوما عودة يبغى نقال لو بكرة waxaan kale oo ka codsanayaa dhammaantiin intiina halkaan joogto maanta inta yada naga maqan inta gabdhuhu jirto
iyo dhammaan intuu quseeyay barnaamijkan Somali Central State oo dhan in aan ku wada shaqeyno gacmo wada jirka wax ku gooyaan aad soo dhawaataan aad ka qayb qaadataan haddaa bannaanka joogtaan wixii laga samayn karo waxaan gudaha soo gala aan wada saxno aan ka wada shaqeyno waxaan rabno waa horumarka dalkeena iyo dadkeena iyo ummaddeena insha Allah.
bulshadan gacal baad u tahay gargaara dhigaad u tahay
على مسارkaasi kadib mas'uuliyiinta maamulka Somali Central State gaar ahaan madaxda loo doortay inay hoggaanka u qabtaan maamulkaasi hawshii ay wadeen halkaasi kagama harin hasaatee waxa ay sameeyeen shaqo adag taasi oo ay ka qayb galeen kulamo aad u fara badan oo lagu lahaa qaybo kamid ah wadamada kala duwan ee caalamka waxaana ugu dhaxalgalsanaa kulamo ay kaga qayb galeen magaalada Nairobi kadibna ay ka soo baxeen in magaalada Cadaado lagu qabto shirweyne ay ka soo qayb galaan qaar kamid ah maamulada ka jira dalka Soomaaliya halkaasi oo maamulka bartamaha Soomaaliya uu door lixaad leh ka qaatay waxa uu kamid ahaa mas'uuliyiinta maamulkaasi gaar ahaan madaxweynaha maamulka Somali Central State shirgudoonidii kulankaasi ama shirkaasi shirgudoominayay kadib mas'uuliyiinta maamulka Somali Central State markii uu soo ilaaday shirweynihii ka soconaya magaalada Cadaado waxa ay u kicitimeen deegaanada Balanballe Aabudwaaq Dhabbad iyo deegaano kale oo deegaanadaasi ku xeeran iyadoo ay ku qancinayeen dadka Soomaaliyeed ee deegaanadaasi ku nool sidii ay uga bixi lahaayeen dhibaatada soo daashanaysay 22 sano ee la soo dhaafay kadib markii ay meesha ka baxday xukuumaddii dhexe ee dalka Soomaaliya taasi oo ay ka dhalatay burburkeedii kadib in dadka Soomaaliyeed ay dhibaato faraha la galaan isla markaasina ay iyaguba kala qoqobmaan sidaasi darteedna 19 bishii 12aad ee 2012 ilaa iyo 5 bishii 2aad ee 2012 maamulka bartamaha Soomaaliya waxa uu booqashooyin kala duwan ku sameynayay deegaanada kala duwan ee maamulkaasi isagoo si weyn loogu soo dhaweeyay waxaana mas'uuliyiinta maamulka gaar ahaan madaxweynuhu uu socdaal ku gaaray magaalada Balanballe oo kamid ah magaalooyinka ku yaala galbeedka gobolka Galgaduud halkaasi oo ay ku soo dhaweeyeen boqolaal shacabka reer Balanballe madaxda maamulka bartamaha Soomaaliya ugu sareysa waxaana dadkani ay tubnaayeen hay'adaha jidka iyagoo si weyn ugu marxabeynayay imaanshaha maamulka Somali Central State oo soo gaaray magaalada Balanballe ee waqooyiga gobolka Galgaduud Somali Central State anigoo dhammaan Soomaaliya magacooda runtii annaga muddo dheer ayaan barnaamijkan ugu soo waday waxaan soo wadnaa waxqabadkiina horumarkiina insha Allah waxaan idin ballan qaadaynaa laga bilaabo maanta in maaragtay wixii awoodnoo dhan aan idin qabanno waxaan qaban karnana aan tarno haddaba kulamadii maamulka bartamaha Soomaaliya mas'uuliyiintiisu ay la qaadanayeen waxqabadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan bartamaha Soomaaliya kuma ekeen oo kaliya degmada Balanballe hasaatee waxa ay dib ugu soo laabteen magaalada Aabudwaaq ee xarunta maamulkani iyadoo halkaasi kulamo kula qaatay odayaasha dhaqanka iyo waxqabadka deegaanadaasi ku dhaqan inkastoo ay jirtay mucaaradad maamulkani ka hor yimid hasaatee waxa lagu guuleystay in la xaliyo kadib markii dadka deegaankaasi gaar ahaan odayaasha dhaqanka iyo waxqabadka deegaanadaasi ay si fiican uga fikireen ayaha ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan bartamaha Soomaaliya waxa lagu guuleystay in dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan bartamaha Soomaaliya ay si weyn ugu marxabeeyaan shaqada maamul goboleedka bartamaha Soomaaliya noo yimid weeyaan wax kala qabsan marka hore saas aan ku talinayaa maydin la qumanta waxaana lagu guuleystay xarunta waqooyiga galbeed ee gobolka Galgaduud in lagu qabto
isku soo bax aada u ballaaran kaasi oo ay sameynayeen bulshaweynta degmadaasi, taasi oo ay kasoo qayb galeen odayaasha dhaqanka, ugaaska beelaha halkaasi dega iyo sidoo kale ururada hooyooyinka, dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwaasi oo taageero weyn u muujinayay sida ay ugu hamuun qabaan maamulka bartamaha Soomaaliya. waxaana halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyey odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka Soomaaliyeed ee ku dhaqan degmadaasi, gaar ahaan kuwii kulankani kasoo qayb galay oo sheegay in ay tahay mid lagu farxo maanta maadaama la gaaray xilligii dadka ku dhaqan deegaanada gobolada dhexe ay heleen maamul ay iska leeyihiin, isla markaasina waqtigina uu yahay mid ay in badan sugayeen sida ay sheegayaan qaar ka mid ah waxgaradkaasi. haddaba waxaa halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyey odayaasha, ugaaska beesha, madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka iyo qaybaha kale ee bulshada, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan soo dhawaynaynaa haddaanu nahay beesha sade oo galgaduudeed, rag iyo dumar intaas aan sheegnay oo xubnaha oo kala duwan. waxaan soo dhawaynaynaa madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka dowladdaas ku magacaaban Soomaali Central State. waxaan ugu hogaaminaynaa madaxda aan dooranay annaga inteeda kalena waxaa ballan noo ah shaqo, waxaa ballan noo ah walaalnimo, waxaa ballan noo ah wadajir, waxaa ballan noo ah wadatashi. waxayna taagan tahay barbarkii ay ka baxdaa waa bakayla qaroon. waxaan leeyahay mareexaan sadow dhammaan midnimo iyo wada shaqayn yeelo, sharafkaaga iyo cisadaada ku midow, markaasaad la heshiin yacni wax la qabsan kartaa Soomaaliya inteeda kale ama darisyada idinku waxan. markii adinku aadnaan midaysanayn ama aadan wax ahayn ama masiirkiinu uusan muuqanin, waxba haddii alla kuu imahayo ninna wax lama qabsan kartaan, nin aad wax la qabsataan male. masiirkiina mideeya, soo dhaweeya Soomaali Central State, soo dhaweeya amniga sidiisii hakuugu shaqeeyo, garab iyo gacan nasiib maamulkeennana hala midow. anigu waxaan ku baaqahayaa arrintaas, wixii tusale iyo talaana waa idin siin, waana aqoonsaday Central State, waa aqoonsaday haddaana hayadii alla ku meego askubalkasay. waxyaalaha annagu aan u nimid oo idiin ballan qaadayno waxqabadkooda haddii aan nala garab gashaan. waxyaalaha waxaa ka mid ah caafimaadka, waxbarashada, nabadaynta, biyogelinta. intaas ayaanu istaagaynaa oo intaba aan isleenahay in dhibaato hadda ay ka jirto. waxaad la socotaan waxbarashada markaan soo qaato Soomaali Central inta hadda ku magacaaban inay leedahay hal dugsi sare, inay leedahay inta degmooyinka kale inaysan lahayn wax dugsi sare. meelaha gobollada kale ay ka jiraan jaamacado sanad walba ay ka qalin jabiyaan intaasoo arday ay ka qalin jabaan jaamacadaha. annagu waxaan la'aanahay laba dugsi sare kaliya inaan helno. waxaan awoodda saaraynaa sidii loo tayayn lahaa waxbarashada, sidii ardayda aan waxba haysan oo waalidkoodu soo shaqaysan siday u heli lahaayeen waxbarasho firiya ayaan ku talagelaynaa insha Allah haddii la yiraahdo inaan samayno. caafimaadka waxaan la soconaa dhibaatooyinka jira waan garan karnaa. qofku markuu dhaawacmo ama wax yimaadaan guriceel baa loola cararaa ama waxaa la leedahay gaalkacyo. waxaanu samayn doonaa inaan wax ka qabanno insha Allah haddii la yiraahdo in si fiican caafimaadka loo wato oo mar dambe aan aadin gobollo kale ee gobolkeenna inaanu ka helno waxaan caafimaad u baahno. intaas oo aan sheegay goormay hirgeli karaan waa marka aan gacmaha isqabsanno, aan isku duubanno. haddaad maantana tidhaahdaan wacdi doorannay halkaasna aad nooga hartaan wax ka hirgelayaa ma jiraan. shirka oo looga hadlayay dhamaystirka maamulka bartamaha Soomaaliya ayaa waxaa ka soo baxay gobolada soo socda. kadib 20 sano oo muddadii waddanka Soomaaliya uu burbursanaa waxaa noo suuro gashay in aan shirar ku qabanno maamul gobolada dhexe ee Soomaaliya ama bartamaha Soomaaliya. shirarka aan ku dhamaystiraynay maamulkaas kaasoo ahaa maamulkii ugu horreeyay oo maamul goboleeda
oo ka hirgala deegaanadaas. labo waxaan ku go'aansanay shirarkaas inaan dhisno xildhibaano oo yeesho maamulkaas gobollada bartamaha Soomaaliya oo tiradooda guud ay tahay 44 oo u kala baxa 37 rag iyo 7 gabdhood kaas oo lagu qaybsaday habka nidaamka afar-waaxeedka ama afar-waaxeedka ay u yaqaanaan dadka deegaanka oo ahaa nidaam lagu horeeyay iyaga wax u qaybsan jireen annaga go'aankooda tixgelinayna ayaan waxaan la qaadanay haddaan nahay madaxda bartamaha Soomaaliya inaan arrintaas fulino. shirkaas qodobka saddexaad waxaan ku go'aaminay inuu baarlamaanku yeesho gudoomiye ku-xigeen koowaad gudoomiye ku-xigeenka labaad iyo xogeyn. marka laga soo tago hadallada odayaasha iyo waxgaradka kala duwan iyo culimaadudiinka ka soo yeeray oo ku aadan taageerada ay u qabaan maamulkani bartamaha Soomaaliya waxaa haddana jirtay guubaabo ku aadan sida loogu hamuun qabay maamulkani oo ay munaasabadaasi ka dhacday xarunta maamulkani ee magaalada Cabudwaaq taasi oo ay ku soo bandhigeen kooxaha fanaaniinta ku dhaqan degmada Cabudwaaq ee xarunta maamulkani waxaana ka mid ah heesaha ay halkani ku soo bandhigeen heesa ka turjumayay maamulkani iyo sida loo sugayay. intaasi kadib waxaa dhacday in maamulka bartamaha Soomaaliya uu gaaro qayb ka mid ah hadafkii uu ka lahaa bartamaha Soomaaliya taasi oo ku aadaneed in ay hantaan guud ahaanba dalka Soomaaliya hase ahaatee ilaa iyo hadda ay qaybo badan oo ka mid ah gobolka si toos ah uga tirsan yihiin isla markaasina ay bulshada ku dhaqani soo dhaweynayaan oo ay taageersan yihiin. inkastoo qaybo ka mid ah hadafkii maamulkani loo soo yagleelay ay iminka rumowday hase ahaatee waxaa horyaala mas-uuliyiinta maamulka bartamaha Soomaaliya shaqo adag oo ku aadan mas-uuliyaddii loo soo idmaday in ay gaarsiiyaan bulshada dhammaanteed dowlad wanaag taasi oo looga gudbo dhibaatadii 21 sano ee lasoo dhaafay ku dhacaysay bulshada Soomaaliyeed. haddaba waxaa laga yaabaa qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed in aanay si wanaagsan ula socon deegaanada ku abtirsada maamulka bartamaha Soomaaliya waxaase halkani aan ugu cadeynaynaa in deegaanada sida tooska maamulkan oo yimaada ay ka kooban yihiin 2 gobol oo ku yaala bartamaha Soomaaliya sida gobolka Galgaduud iyo gobolka Mudug. dhanka galbeed waxa uu xuduud kala leeyahay dowlad goboleedka bartamaha Soomaaliya dowladda aynu jaarka nahay Ethiopia halka waqooyiga ay ka xigto maamul goboleedka la magac baxay Puntland. dhanka koonfurtana waxa uu xuduud kala leeyahay gobolka Hiiraan halka dhanka barina uu maamulkani deegaanadiisa ay ka xigaan badweynta Hindiya. tan iyo markii la soo dhisay maamulka bartamaha Soomaaliya wali si fiican ugama shaqo bilaabin inta badan gudaha dalka hase ahaatee waxaa jira qaybo badan oo maamulkani uu gacanta ku hayo inkastoo sanadkii tegay ee hadda la soo dhaafay gaar ahaan bishii Oktoobar uu tegay maamulka gudaha wadanka Soomaaliya sida aad daawaneyseenba oo uu kulamo la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan bartamaha Soomaaliya waxaana dhammaan bulshada uu la kulmay maamulkani ay u soo jeediyeen ammaan ku aadan in ay si laban shaqada kala duwan ay u hayaan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan bartamaha Soomaaliya. haddaba deegaanada hoos yimaada iminka maamulka bartamaha Soomaaliya waxa ay kala yihiin magaalada Dhuusamareeb, Cabudwaaq, Balanbale, Xaraale, Galinsoor, Dhabbad, Oodaale iyo Bangeele iyo sidoo kale dhammaan inta deegaanadaasi aynu soo sheegnay dadka gudahooda ku dhaqan kuwaasi oo mas'uuliyadiisu ay saaran tahay maamulka bartamaha Soomaaliya iyadoo ay jiraan in qaar kale oo ka mid ah beelaha iyo deegaanada jaarka la ee degmooyinkan aanu soo sheegnay in uu socdo wada hadallo ku aadan sidii ay kaga mid noqon lahaayeen maamulkani iyadoo ay jirto codsiyo ku aadan inay ku soo biiraan
maamulkani si ay dhibaatada inta badan daashatay dalka Soomaaliya ay iminka kaga xoroobaan. Dowlad goboleedka bartamaha Soomaaliyana waxa uu noqon doonaa mid u taagan samata bixinta bulshooyinka Soomaaliyeed, waxaana dhismaha iyo barbaarinta maamulkani uu intani ku soo gaaray aqli xoogan, aqoon iyo dhaqaale fara badan oo ay ku bixiyeen dadweynaha ku abtirsada maamulkani, gaar ahaan dadka aqliga u saaxiibka ah ee ku nool dalka iyo dibaddiisa. dhammaan shirarkii iyo wada-tashiyadii ay sameynayeen mas'uuliyiinta maamulka bartamaha Soomaaliya ma dhammaanin, waxa ayna goor waliba ballan qaadayaan in ay sii wadi doonaan sidii ay u horumari lahaayeen bulshada Soomaaliyeed oo waqtiyo badan ay ragaajisay abaar iyo dagaallo ku dhuftay. waxaana la dejiyay qorshihii siyaasadeed ee lagu dhaqi lahaa deegaanada ku abtirsada maamulkani bartamaha Soomaaliya oo dowlad la'aan ahaa in ka badan 20 sano kadib markii xukuumaddii dhexe ee dalka Soomaaliya ay meesha ka baxday 1991 xilligaasi oo wixii ka dambeeyay dalka Soomaaliya ay ka kacday fowdo ba'an, taasi oo sabab u noqotay in bulshooyinka Soomaaliyeed ay u kala baxsato daafaha kala duwan ee caalamka, kuwii fursad u hela halka kuwa badan ay ku silcayaan gudaha dalka Soomaaliya. waxa ugu weyn oo la isku raacay oo dadka deegaanku hadda ay go'aansadeen ayaa waxa ay tahay dhismaha maamul goboleed laga dhiso bartamaha Soomaaliya, waxaana ilaa iminka la dhisay 44 xildhibaan oo noqon doona golaha baarlamaanka, halka la dhisay golo guurti oo ka kooban ilaa 38 xubnood, golo wasiiro oo ka kooban ilaa 16 wasiir ku-xigeen iyo golo galyaqaan. waxaana sidaa dareemaysaanba taagan magacii dowladnimada, waxaana maamulka bartamaha Soomaaliya uu mar waliba ballan qaadayaa xal u helista dalka Soomaaliya in cid waliba oo ka shaqeynaysa uu ka geli doono baaldahaba. si walba ahaataba dhismaha nidaamka dawliga weli ma dhammaystirna, hase ahaatee waxaynu ku rajo weynahay in waqtiyada soo aadan la soo dhammaystiri doono, taasi oo laga dareemi doono gudaha iyo dibadda dalka Soomaaliya. waxaana maamulkani markasta uu u taagan yahay dib u heshiisiinta bulshada dirirta ee Soomaaliyeed, iyagoo ka xun dhibaatooyinka iyo dirirta inta badan ka dhacda qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya, taasi oo ugu weyn tahay dhibaatada adag iyo colaadaha u dhaxeeya dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya iyo sidoo kale Al-Shabaab oo dagaalba aan kala soo horjeeda, iyo Ahlus Sunna wal Jamaaca oo dowladda iska rabsadaan. dowlad goboleedka bartamaha Soomaaliya waxa ay diyaar u tahay dhismaha nidaam iyo maamul oo gobolku yeesho sida maamulada kale oo naga horeeyay sida kuwa Somaliland iyo Puntland. ujeedooyinka dowlad goboleedka bartamaha Soomaaliya waa inay qabato waxyaabaha soo socda: 1. in gobolka deegaanada la deriska iyo xuduudaha Itoobiya ay ka abuurto nabad iyo kala dambeyn ay helaan bulshada ku dhaqan. 2. inay abuurto horumarin xiriir gobolka iyo gobolada kale oo deriska la ah, laga soo bilaabo dadka deegaanka hoose ilaa la keeno kor. 3. inay dhaqaale aruurin u sameyso dalka iyo dadka. inay abuurto horumarin ganacsi gobolka iyo warshadaha. in ay maalgeliso hay-adaha caafimaadka, waxbarashada iyo amniga. in aynu la dagaalano cid allaale cidii ka soo horjeeda nabad ka tisqaada gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya, isla markaasina dhibaato ku ah ammaanka gobolka iyo dowladaha deriska la ee gobolada dhexe, taasi oo keeni karta in mar kale qalqal uu ka dhasho gobolada dhexe ammaankeeda, taasi oo aanay marnaba yeelaynin mas'uuliyiinta maamulka dowlad goboleedka bartamaha Soomaaliya. waxay taageersan tahay ama ay ka qayb tahay TFG-da, waxayna tixgelinaysaa heshiisyadii Djibouti, Kampala Roadmap-ka iyo kuwii ka dambeeyay ee Garowe 1 iyo Garowe 2 iyo wixii kale oo soo dhaweynaya go'aamadii ka soo baxay shirkii London. dowlad goboleedka bartamaha Soomaaliya waxa uu higsanayaa in uu horay u maro, isla markaasina uu galaba liiska ugu horeeya ee ammaanka, waxbarashada, horumarka, caafimaadka iyo sidoo kale dhammaan kaabayaasha nolosha bini'aadamku ay ka kooban tahay, iyagoo sanadada soo socdana
u rajeynaya bulshaweynta ku dhaqan bartamaha Soomaaliya in ay noqon doonaan kuwo lagu daysado maadaama ay wadaan abaabulo ku aadan in ay wax ka qabtaan ammaanka deegaanada ay ku nool yihiin isla markaasina ay garabsadeenba in arintaas ay tahay mid lagama maarmaan ah waxa ayna dhammaan bulshaweynta Soomaaliyeed ay ugu hambalyeynayaan dadka ku dhaqan gobolada dhexe maadaama ay maanta garteen dantooda oo ay ku midoobeen waxaan soo dhawaynaynaa madaxweyne ku-xigeenka dowladdaas ku magacaaban Somali Central State kadib 20 sano oo muddadii waddanka Soomaaliya uu burbursanaa waxaa noo suuro gashay in aan shirweyne ku qabanno maamul gobollada dhexe ee Soomaaliya ama bartamaha Soomaaliya shirarka aan ku dhamaystirayno maamulkaas kaasoo ahaa maamulkii ugu horreeyay oo maamul goboleeda oo ka hirgelay deegaanada waxyaalaha annagu aan u nimid oo idiin ballan qaadayno waxqabadkooda haddii aad nala galgashaan waxyaalaha waxaa ka mid ah caafimaadka waxbarashada nabadaynta biyogelinta intaas ayaanu istaagaynaa oo intaba aan isleenahay in dhibaata hadda ay ka jirto